بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتو وعن وناكسن دمانا قيارتي dhegeysanaysa meel kasta joogtaan kusoo dhawaada barnaamij aan ugu talagalay inaan idinku soo bandhigo jahliga iyo dhibaatada heysata qayb kamid ah saxaafadda Soomaaliyeed. waxaan aad uga xumaaday idinkan aad ka xumaan doontaan xitaa cunuga af Soomaali baradka ee 15 jirka oo ka xumaan doono wax ka dhacay mid kamid ah idaacadaha ugu afka dheer gudaha dalka Soomaaliya oo aad wada garanaysaan. iska daayay qaladkii dhacay shaqsi wariye sheeganaya amaba ah shaqsi cilmi leh xitaa qaladkaas kama dhici karo dadka af Soomaali baradka ah. ceebe tacaal waxa maqli jiray ceeb looma dhinto. waxaan halkan idinku soo bandhigayaa war maanta ka baxay mid kamid ah idaacadaha ugu afka dheer gudaha dalka Soomaaliya ee loo yaqaano Radio Shabeelle. run ahaantii qodobada oo aan ka soo aruuriyay warkan waxay ka badan yihiin tobanaan. hase yeeshee warkii idaacadda sii deysay ma dhama 2 daqiiqo ama 3 daqiiqo. bal u fiirso 2 daqiiqo war la akhriyay lagana helayo in ka badan 10 qodob oo aad ceeb u ah fadeexadna ku ah saxaafadda Soomaaliyeed. balse intaan u guda galin barnaamijka bal ila daawada warbixintan kooban. imaamkeena weyn al-imaam Abu Hanifa imaam al-a'imma wuxuu leeyahay man shakka fi kufri haula يعني الشيعة لمن كان الشيعة نكي قال لماذا شكيو فهو كافر نساء وقال الله سيدة مشايخ إنه شيئا تشيع أما الشيعة هو شيء آد وحمان بضن معتقدات كذا إلى كتاب كم حقيقية عشرية ده لمن كاس إن اعتقاد كأهل السنة والجماعة وحيكون خلاف سيئين أي تهي أكثر من 30 مسألة ومسائش علماء مكي أي بحثيا يراهدين معاهي ومخرج عن الملة قف هدوء وحي بركيهين شيعة ناس كذا دين تبو كبحيا ما بقى هم بدعين ما معها مكفر ويان وعلى أهل السنة والجماعة هي طرق الصوفية كل يوم وحي بركيهين gabagabadii shirki socday 2 maalmood ayaa warbaahinta iyo shirweynahaba waxa ka hor akhriyay war murtiyeedkii ka soo baxay shirka guud ee ahlu sunna wal jamaa wuxuuna yiri bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam war murtiyeed press release culimada ahlu sunna wal jamaa ee geeska Afrika ayaa shir looga hadlayo qatarta iyo dhibaatada bidcada shiicada ah ku qabtay magaalada Makiina Road ee dalka Kenya. culimada oo ka kooban ahlubaytka rasuulka alayhi salaatu wassalaam mudarrisiin waa murtiyeed. culimada ahlu sunna wal jamaa waxay isku waafaqeen in shiicada badankood madhabkoodu gaalnimo yahay inta soo hartana tahay bidco aad u xun xaqana ka fog. ahlu sunna wal jamaa bari ka yihiin isla markaasna waxay uga digayaan ummadaha islaamka ah fitnada bidcada shiicada ah. laba in isku meel looga soo wada jeesto ka digista iyo ka hortagga faafidda bidcooyinka shiicada islaamka ah fitnada bidcada shiicada ah. laba in isku meel looga soo wada jeesto ka digista iyo ka hortagga faafidda bidcooyinka shiicada iyo wahaabiyada. saddex in culimada ahlu sunna wal jamaa bilowda ole dadka laga wacyigelinayo fitnada bidcooyinka wahaabiyada iyo shiicada iyagoo qaadaya tallaabooyin ay ka mid yihiin sida samaynta safaro iyo kulano joogto ah oo la isku wacyigelinayo iskaashiga iyo xoojinta baxdiga lagu sameynayo bidcada shiicada iyo wahaabiyada si looga nabadgalo dhagartooda. in culimada ahlu sunna wal jamaa degdeg u bilaabaan daraasaynta bidcada shiicada ah si ummadda uga foojignaato. afar in dadaalka looga hortagayo bidcada shiicadu aanu hakin juhdigii joogtada ah ee ahlu sunna wal jamaa dadka uga digi jireen fitnada bidcada wahaabiyada ee khawaarijta. 5 in la sameeyo guddi culimo ah oo qaabilsan dabagalka iyo joogtaynta howlaha shirkan lagu guddoonsaday. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. billahi tawfiiq. aan u guda galo barnaamijkii aan idinkugu talagalay ee aan idinkugu soo bandhigayay jahliga heesta iyo dhibaatada saxaafadda. bal isku fiirso muuqaalkii ka horeeyay ee hadda aad ila daawateen iyo waxa soo socda isku fiiri.
haddii aan idin soo bandhigo qaybo ka mid ah qodobadii aan soo arooriyey ayaa waxay u dhacayaan sidan. maamulka ahlu sunna oo iska fogeeya in xiriir gacan saar ay la leeyihiin shiicada iyadoo sidoo kalena ay ku baaqeen in Soomaaliya markaasi laga hirgeliyo madhabka shiicada. tixraac qodobka koowaad wariyuhu warka akhrinayo wuxuu yiri maamulka ahlu sunna oo iska fogeeya in xiriir gacan saar ay la leeyihiin shiicada. midda koowaad qalaqigii iyo culimadii aad ogeedeen iskaga yimid daafaha East Africa ayuu wuxuu ku tilmaamay maamul. waa maxay maamul? maxayse u dooratay idaacaddu ciwaankaas iyaga oo og sida shirweynaha uu dhacay? midda koowaad maamul macnihiisu waa maxay? maamulka ahlu sunna kani ma ahayn maamul ahlu sunna ee wuxuu ahaa shirweyne ahlu sunna oo ka dhacay wadan daris la ah dalka Soomaaliya oo wuxuu ka dhacay Kenya. isla qodobkaas wuxuu yiri wariyaha maamulka ahlu sunna oo iska fogeeya in xiriir gacan saar ay la leeyihiin shiicada. maamulka ahlu sunna oo iska fogeeyay su'aasha waxay tahay waa maxay iska fogeen? maxayse u dooratay idaacaddu ciwaankaas iyagoo og sida shirka u daawateen inuu u dhacay isla markaasna isku keenay علماء الدين آد وفربضان شركة سعودي مدة كبان 3 مالين علماء الدين أهل السنة والجماعة إياها أيا أبابولي شروينة ومدى الصومالية لو قدقى شيعة وهال برغراف وأخري وريها نوحو استعمالي لابا إري وقلد صحافة دانا مال وقدعيا isla daqiiqadii wariyaha muxuu yiri maamulka ahlu sunna oo iska fogeeya in xiriir gacan saar ay la leeyihiin shiicada iyadoo sidoo kalena ay ku baaqeen in Soomaaliya markaasi laga hirgeliyo madhabka shiicada. ahlu sunna oo ku baaqday in Soomaaliya laga hirgeliyo fikirka shiicada bal u fiirso eraygaas wariyaas uu leeyahay oo miyuusan xasuusnayn eraygii ka horeeyay oo yiri oo ahaa ahlu sunna oo iska fogeysay inay gacan saar la leeyihiin shiicada. ma aqaan inuu ku hadlayo luqadka qalaad waa mise luqad China ma baaha Soomaaliya. isla daqiiqadii labaad wariyuhu wuxuu isticmaalay maamulka ahlu sunna ayaa iska fogeeyay in xiriir gacan saar ay la leeyihiin shiicada iyagoo culimada Soomaaliyeed uga digay in shiicadu ay ku soo fidaan Soomaaliya. ahlu sunna oo culimada uga digtay in fikirka shiicadu uu faafo. ahlu sunna ma urur siyaasi oo meel degana oo la hadlaya culimada mise ahlu sunna waa culimo u diinka Soomaaliyeed isla iyaga ayaana abaabulay qorshaha amaba shirweynaha looga digayo ummadda Soomaaliyeed arinkani fikirka shiicada ee ku faafaya Afrika. shirku waxa qabtay culimadii naftirkooda culimo u diinka Soomaaliyeed ee ma qabanin urur siyaasi ah ama urur NGO ah. wariyuhu halkaasi muusan fahmin macnaheedu. fadeexada u weyn oo aad la yaami doontaan oo marar badan dhacda sida idaacadda Shabeelle ay sheegtay waxa maqalnaa idaacadda Shabeelle madaxweynaha oo wareysi siiyay idaacadda Shabeelle oo hogaamiye hebel wareysi siiyay balse ma ahane fadeexada meeshaan taalay halkan ay la dhageyso. دكتور خليف محمود عبد علمي oo wareysi siiyay idaacadda Shabeelle magaalada Muqdisho ayaa tibaaxay in dadka Soomaaliyeed ay u nugul yihiin in ay u soo dusto madhabta shiicada waxaana uu ka digay in dadka Soomaaliyeed ay shiicada ku dhex milmaan isagoo ku booriyo culimada Soomaaliyeed in dadka ay ka wacyigeliyaan dhaqanka shiicada. press release culimada ahlu sunna wal jamaaca ee geeska Afrika ayaa shir looga hadlayo qatarta iyo dhibaatada bidcada shiicada ah ku qabtay magaalada Makiina Road ee dalka Kenya. culimada oo ka kooban ahlubaytka rasuulka calayhi salaatu wassalaam mudarrisiinta iyo sheekul dariiqaha dalalka geeska Afrika waxay ka kala yimaadeen deegaano kala duwan ee dalka Kenya ah sida Nairobi, Garissa, Wajir, Mandera, Tana River Coast, Ariha, Dadaab, Kakuma iyo sidoo kale dalalka jaarka ah sida Ethiopia, Soomaaliya iyo Tanzania. culimada ahlu sunna wal jamaaca waxay isku waafaqeen kow in shiicada badankood madhabkoodu gaalnimo yahay inta soo hartana tahay bidco aad u xun xaqana ka fog. ahlu sunna wal jamaacana bari ka yihiin isla markaasna waxay uga digayaan ummadaha islaamka ah fidnada bidcada shiicada ah. fadeexada ugu weyn waxay ahayd war murtiyad caalami ah kaasoo qaadatay bahda saxaafadda kuwa localka ee Kenya ka jira kuwa Soomaalida TV-yada saxaafadana goobjoog ay ahayd balse wariyahan muxuu sheegtay دكتور خليف محمود عبد علمي oo wareysi siiyay idaacadda Shabeelle magaalada Muqdisho ayaa tibaaxay muxuu yiri oo wareysi siiyay idaacadda Shabeelle waxa uu waramay idaacadda Shabeelle uu hadana ka dhigayo shakhsi asaga u waramay hase yeeshee ma ahayn war murtiyeedkan wuxuu ahaa war murtiyeed laga aqriyay dad hortooda Shabeellena goobjoog maysan ahayn ee warku waa loo diray. haddii loo diray maxaa ku kale wariyaha inuu ka dhigo warkan war Shabeelle qaas u ah uu dhaho idaacadda Shabeelle la siiyay. midda kale maxaa u diiday
marka uu leeyahay ninkan Shabeelle siiyey in uu dhaho war murtiyeedkii ka soo baxay waa kan oo ah intaano qodob wallaahi ceeba taalo waa la ceeboobay so intaan aad u jeedaan waa qaybo ka mid ah warkii ay akhriyeen oo ka baxay idaacadda ay bulshada Soomaaliyeed dhammaan wada dhageysatay meel kastay joogaan hadaa gashid website-yadooda waa laga helayaa waxa kale oo kugu soo bandhigi doonaa haddii ay ka baxsheen website-kooda linkiga website-yada wararkan ay galeen iyo wararka codadka oo dhammaystiran waa mahadsantihiin dhammaan qaybta dhageysanaysa